Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalkan soo dhowaada. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha iyo goosgooska xalqada 30-shanaad iyo sababta kaliftay in dib loo sameeyo goosgoos maadaama goosgoos hore la sii daayay oo xalqada 30-shanaad iyo labada farqi ee u dhexeeya labada goosgoos iyo sababta kaliftay in goosgooskii hore la dhileedo. Haddaba intaana muuqaalka guda galin muuqaalka laag noo saar waa mahadsantiintaa ka bacdi soo dhawow. Samada ognahayba sanadii cusba markii uu bilaabmay waxaa hakad galay dhammaan musalsalada Turkiga. Saasay tahay laba toddobaad waxaa hakad galay musalsalka walaalaha oo lama daawan asaga. Marka toddobaadkiisii saddexaad ee waxaa la go'aansaday taxanaha in dib loo bilaabo dibna halkiisii looga sii wado. Haddaba maxaa u dhexeeya labada goosgoos? Goosgooskii koobaad samad ognahayba wuxuu ahaa goosgoos iska normal ah. Goosgoos runtii dadka shaki badan ku rid yacni goosgoos la rabay in uu noqdo goosgooska labaad ayaa laga dhigay goosgooska koobaad. Goosgooskaasi waxa uu ahaa gabadhii email ahayd oo caafimaad qabta ayadoon wax dhibaato ah soo gaarin. Sidoo kale goosgooskaas waxa uu ku saabsanaa ayaga oo meeshan ka guuray una guuri rabay guri cusub loona soo bandhigayna hadda kadib gurigaas ku noolaan doonaan. Haddaba maxaa kalifay in goosgooskaasi uu tago? Samad ognah baad haddaad heshay haddaad hadda goosgooskaasi ma heli kartid xilligan oo waqtigan YouTube waa laga saaray ilaa ma aad heshid kula keydiyay yacni goosgooskaad hadda meel YouTube lagama heli karo siiba ATV iyo dabcan Kardashian. Goosgooskaasi waxa uu ahaa goosgoos iska caadiya laakiin goosgooskii maalintii la baahiyay ayaa wuxuu ahaa goosgoos sax ah oo goosgoos rasmi ah. Ugu horreyntii xalqada 30-shanaad waxaa la daawan doonaa 15 bishan January. Hadda xilligan muuqaalkan sameynaya waa 12 January. Soo marka waxa uu soo gaari doonaa muuqaalkaasi 3 cisho ka bacdi ka hadhay calaa kulli xaal 15 January. Haddaba goosgooska ugu horreyntii balan falanqeyno goosgooska waxaan ku arkaynaa ninka Cumar aha u dhaaranaya isagoo u dhaaranaya wiilkii Burhaan aha ee ku dhuftay xabadda gabadhan email asagoo Cumar oo leh ogow haddaba haddii ay gabadhaas wax soo gaadhaan adiga ayaa u maqan ama adiga ayaan kaa tari doonaa wax walba ay gabadhaas soo gaadhaan. Halka dhanka kalena aan arki doono dabcan in aad moodid in ay jilayaan film yacni badanaa waxaa loo diraa projectiyo soo marka maamulaha dugsiga ee Mudane Burak ayaa waxaa u diray projecti ah in dharka militariga ay xidhaan halkaasina ay wax ku soo duubaan ninka soo duubis ay ahayn oo nadiifin ahayd. Soo markii librariga ay ka soo baxayaan oo halkaasi ay iman doonaan halkaasna Dooruk oo jooga ayaa waxaa iman doontaa Asiye sugola Asiyaalkan maxaad ka qabanaysaa? Sidoo kale waxaan arkaynaa ninkii Uljaan ah oo dhulka jiifta qoftii harika ahaydna ay ka xanaaqsaneed arrinkaasi xilligaas ma sheegi karin sabab uu u jiifay dhulka muudaalay maxaa ku dhacay. Marka wuxuu ahaa kaliya comedy ayuu ka mid ahaa intaasi soo sawirada Instagram-ka ay soo geliyeen iyo qoraalada ay soo post gareeyeen waxaa ka mid ah Bundaan Soora hadda kadib Jojoklar anagu waxaan nahay dabcan hal caa'ila ama hal reer ayaan nahay macnaha caruur yahayn hadda waxaan nahay anagu hal reer waxaana saas leh Burhaan xaaskiisa islaantii guriga loo nadiifinaya ayaa saa lahayd macnaha waxaa iska cad in ay guuri rabaan gurigana ka guuri rabaan. Isla goosgooska dhexdiisa waxaan arkaynaa qoftii dabcan Shanguul ahayd oo guri soo gali doonta guriga qurux badan. Sidoo kale cod ayaan maqlaynaa codkaasaan u malaynayo islaantii guriga loo hagaajinaya Asiye guriga u nadiifinaysay in ay tahay ayadoo gabadhii email ahayd ku leh hadda kadib waxaad iigu yeeri kartaa hooyo oo hadda kadib waxaad iigu yeeri kartaa hooyo. Arrinkaasna runtii waxaa ka naxay Shanguul. Shanguulna waxay ogaatay hadda kadib inaysan walaalaha halkan sii joogi doonin oo ka tagi doonaan oo yacni gurigaasi cusub ay u guuri doonaan. yacni waa laga yaabaa in uu Cumar diido oo uu arrinkaas ka soo horjeedsado laakiin sida loo badinayo ayaa waxay tahay in ayaga ay tagi doonaan halkaas. Haddaba goosgooska labaad ee xalqada 30-shanaad ayaa waxaa la sugayaa caawa ama habeen dambe ayaan sugaynaa waa Arbaco maanta ah iyo sidoo kale beri Khamiista labada mid ka mid ah ayaa la sugayaa ilaa Friday labadaas mid ka mid ah ama saddexda mid ka mid ah saddexda maalmood gudahooda goosgooska lagu soo dayn doonaa haddii la soo dayn waayana كل حلقة دوما اسكو سوغنا او صباح doonta maalinta sabtida habeenka xadana la daawan doono subaxda xadana anagana falanqeynta ayaan ku sugaysiin hadaba hadii aan gudaha galo arrimaha kale ee baryahan dabcan soo celinta leh ayaa waxay tahay arrinka yani goormu ogaan doona Cumar adeerkiisa in uu qoriyay qadiir qofkii dilay samad ognahay Orhan waxa uu ku soo darsaday qaybta qarinta ama kuwa wax qarqariya ayuu ku soo darsaday Orhan waxa uu hadda og yahay Melissa in ay dishay qoftii
Melissa in ay dishay yarkii Qadiir ahaa. Marka odayga waxa uu xilligaas nabahad ayuu kasoo tuuray meel. Saa darteed waxaa kaliftay in odayga uusan hadli karin oo uusan sheegi karin arrinkaas maadaama arrin dembigaas loo haysto. Odayga wax arrinkaas kama dhigi karo oo waa loo hanjabay. Inkastoo hanjabaad weyn aan la bixin, yacni waa arrin iska cad oo automatic lagu tilmaami karo oo qofku uu samayn lahaa haddii ay dhibaatadaasi qabsato. Marka Cumar waa laga yaabaa inuu adeerkiisa u xanaaqo arrinkaasi marka uu ogaado. Sidoo kale waxaana loo sheegay taxanaha in uu gaari doono ku dhawaad 4 season. Xalqadaha marka la eegana waxa uu noqon doonaa 150 xalqadood. Yacni haddana waxaan maraynaa 33 xalqadood. Seasonka u dheer waxa uu noqon doonaa seasonka labaad iyo seasonka afraad. Marka seasonka labaad maxaa qabsoomi doona? Ugu horreyntii waxaa lagu soo dari doonaa yaar lagu magacaabo Enes. Waxaa iman doonaa xalqadaha soo socda muuqaalada xiga ee rajaynaya inuu muuqaal sax kasoo sameeyo. Waxa uu imanayaa muuqaalada dhawaan ayuu imanayaa, yacni yarkaasi xalqadahan soo socda ma aha jalaagi kale in idiin sheegayay, laakiin kan waa ku kasoo horeynaya jalaagaasi. Cumar walaalo maaha kan, laakiin kan waa ku degdeg ah oo emergency loo baahnaa. Hadda ka horreysiiska lala galay ahayd, yacni isaga iyo kan isku mar ayaa la keeni rabay. Marka kan xilligan hadda ayaa la keeni doonaa oo waa uu iman doonaa. Marka sidoo kale Cumar arrinka laga qariyay ayaa waxay tahay aabihiisa iyo hooyadiisa qofka dilay waa islaantii Khadiija ahayd iyo odaygii ahaa Wali. Dhammaan arrimahaas oo dhan Cumar wax war ah kama hayo. Marka waxaa arrinkaas kalifaya ama arrinkaas waxaa dhici doona aan ka wada macnaha in asaga Doroog mushkulad ay dhex ooli doonto. Asiya Doroogna aysan marnaba kuwa heshiiya aysan noqon doonin maadaama macnaha meesha mushkulad weyn ay taalo. Doroog aabihiisa waa kan mar walba wax geystay. Taas waxaa kasii daran walaalkoodii u soo haray waxaa ka dishay Melissa. Marka Asiye ma Cumar ayay qayaan ay la tahay mise wax kale ayaad qaadan. Yacni Asiye waa iyo Doroog waa kuwa aan heshiin doonin. Doroogna waa mid mar walba kasoo horjeedi doona Ree Atakul oo mar walba wuxuu kasoo horjeedi doonaa Ree Atakul. Dagaal weyn oo ku dhaxinaya, laakiin waxba ka cabsanin. Hadda sheeko ma fashilmayso ayaa la leeyahay, waa sida la sheegayo. Yacni sheekadu marka ay fashilmayso waxay tahay mar la isdhexgalay Asiya Doroog ay isguursadeen, yacni xitaa family la noqday ayuu arrinkani fashilmi doonaa. Yacni mar la iloobo qofkii lagaba sabray ama qofkii loo argudi lahaa asaga xilligaas laga sabray ayaa arrinkan la ogaan doonaa ayaa la leeyahay. Bal kuley sheekadu say ku biyo shubato waan arkaynaa. Ilaahay hana gaarsiiyo waqtigaas aadka u fog ay sheegeen. Marka kuley 4 season waxa uu socon doonaa. Yacni musalkan waxaa la bilaabay 2021. Yacni say sheegeen 2023 ilaa waxa socon doonaa 2025 ayuu soo gabagaboobayaa ama 2024 taxanaha faraha laga qaadi doonaa. Aniga yacni ma sheegi kari oo ma dhihi kari way isbedeli doonaan. Marka waa laga yaabaa inay isbedelaan fikirkan ay ka laabtaan buugga wax ka qaldamo ay ka laabtaan, laakiin sida ay directoradu xisaabaadkeeda ama akoonadeeda ay ku sheegtay waxay sheegtay in taxanaha uu gaari doono 150 xalqadood ama 4 season. Markaas xataa waxaan naga maclinaya muuqaalka daawashadiisa la soco muuqaalada xiga. Marka dana waxaa jira janaal kale oo cusub aan furtay. Janaalkaas document-ga ayaan been ku soo qabanaya kuyaa cadde markaas xaafasadka inuu kala kicsan yahay rajaynaya inuu kala kicin doontiin. Anigoo saaxiibkeena Khalid waxaan idinkaga tagay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.